waayahay barnaamijka dooda jimcaha sidaan horey dhaca ku sheegnay waxaynu ku soo qaadanaynaa shalay magaalada tan London waxaa ka dhacay shir ku saabsanaa arrimaha shidaalka ee Soomaaliya kaasi oo ku aadanaa sidii markaasi loo soo bandhigi lahaa daraasado oo dhinaca sahanka oo la sameeyey iyadoo markaana ay jirtay in shirkaasi arrintaasi si weyn loogu soo bandhigay dowladda Soomaaliya mas'uuliin ka socotay ayaa ka qayb galay waxaase jirtay iyaduna cabasho iyo waliba muran shirka hareeyay iyo shaki ku aadana ku soo bigitaanka xilligan waxyaabaha ku soo beegay haddaba Soomaaliya ma u baahan tahay in la ogaado khayraadkeeda in laga manafacsan karo shidaal ma ku jira wadanka mise kuma jiro ma leenahay qaanuunkii iyo shuruucdii Soomaaliya ee ku aadana dhinaca batroolka ee Soomaalida markaasi u lahaa haddii ay dhacdo in khayraadka markaasi la soo saaro qaabkee loo qaybsan doonaa yaase markan u muhiimsan Soomaaliya ammaanka iyo in shidaal xoog la saaro oo lagu mashquulo aawi doorkii baarlamaanka ma jira barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka batroolka iyo khayraadka biyaha ee Soomaaliya iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed stuudiyaha BBC-da ee London ayuu ila fadhiyaa magaalada Muqdishona waxaa si toos ah khadka muuqaalka ugu jira wasiirkii hore ee amniga isla markaasna sidoo kale wasiirka khayraadka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar waxaa kaloo barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Dr. Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha batroolka isla markaasna ka tirsan shirkadda Aramco ee Sacuudiga laga leeyahay waa Dr. Xasan Cali Xuseen magaalada Dammam ayuu khadka kaga jira sidoo kale studio waxay la fadhidaa Falis Faarax oo ah aqoonyahanad dhinaca dhaqaalaha baratay isla markaasna xagga dareenka shacabka iyo dhinacaas aynu barnaamijka uga wareysan doono aad iyo aad baad u mahadsantii dhammaantiin waqtigeena qaaliga wasiirka ayaan ku hormaraya saacad wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ogaa waqtigaaga aad buu cariiri u ahaa inaad naga aqbashay barnaamijka weliba daqiiqadii ugu dambeeyey aan dareemi karo shirar in hawl lahayd waad ku mahadsantahay waxaan jecel lahay intaa marka laga soo tago arrintii ajandaha waa shirka ku saabsanaa inkastoo in dhowr jeer ka hadashay meeshii la su'aal laga weydiiyay dad badan waxay qabeen inay tahay arrin lagu xaraashay shidaalka Soomaaliya ee aan ahayn sahal la soo bandhigay ajandayaasha rasmiga ah shalay shirki wixii lagu soo bandhigay haddaad warbixin naga siisto wasiir Cabdirashiid mawlid waad mahadsan tahay martida igula jirta khadkana way mahadsan yihiin wasiirka Cabdirasaaq walaashay iyo ninkan jooga Dammam inta waa salaamay umad Soomaaliyeed waxaan ka salaamayaa hawada shirkan shalay aan ku qabanay London wuxuu daba socday shirkan wuxuu daba socday shir aan ku qabanay aan uga qayb galnay Cape Town November 2018 oo ay wadamada Afrikaanka iyo shirkadaha waaweyn caalamiga ka shaqeeya shidaalka ay isugu yimaadaan wadan kastana uu ku soo bandhigo awoodiisa uu leeyahay shidaalka Soomaaliyana waxay ahayd waa lagu casuumay waxaana markaas ku dhawaaqnay inaan shir ku qabanayno London oo ku soo bandhigi doono sahamadii laga sameeyay badda Soomaaliya 2013 ilaa 2015 laba shirkadood oo caalami ah sameeyeen daatadina gacanta lagu hayay London ay taalay waxa ku gacanta ku hayay shirkadii loo xilsaaray oo dawladda Soomaaliyeed ay heshiis kula gashay oo loo yaqaan Spectrum shirkadaas aan waxaan u xilsaarnay inay la qabato soo bandhigid daatadii anaga aan sameynay labada sano oo la soo dhaafay aan soo sheegay wax kale ma ahayn soo in adduunka ku soo jeedino shirkadaha caalamiga tusno haddii Soomaaliya ay khayraad leedahay inay nala arkaan kadibna interestigoodii mustaqbalka ay aan ka wada hadalno intaas ay ahayd ma ahayn wax xaraasha oo xirmooyin ama blogyada shidaal Soomaaliyeed lagu xaraashay muxuu ahaa shirkaas saacadu socday saacadana wax la xaraash kale ma jirin waayahay aad baad u mahadsantahay saacad wasiir waan kugu soo laaban doonaa waayahay aan u wareego magaalada Muqdisho xildhibaan Cabdirasaaq Cumar xildhibaan Cabdirasaaq wasiir horena waa soo ahayd aan filayo arrintan batroolka iyo khayraadka markii la bilaabayay adigu aad ka mid ahayd raggii wax ka bilaabay waayahay inagoo taa u soo laabanayna waxaa jirtay in xisbiyo ka tirsan siyaasadda ee Soomaaliya oo adigu mid ka mid ah ku jirto ay soo saareen arrin ay walaac ka muujinayaan arrintaasi wasiirku wuxuu sheegay iyo wixii aad soo bandhigteen way kala duwan yihiin marka sidee isku waafaqayaan arrintaas bismillaahir rahmaanir rahiim mawlid marka hore waa kaaga mahad celinayaa fursadan aad siisay
waxaa kaleetoon rabaa inaan sidaas si lamida aan u salaamo ugana mahadceliyo akhyaarta igala qeyb qaadanayso doodan uu ka mid yahay wasiir cabdirashiid oo aan muddo soo wada shaqaynay iyo labada kaleeto oo khubarada ah batroolka iyo felis labadaba waa salaamayaa shacabka soomaaliyeed oona daawanayna waa salaamayaa walaal waxaan rabaa marka ugu horeyso hal arin inaan hoosta ka xariiqo warqadda aan soo saarnay waxay ahayd concern aan qabnay annaga ayaa batroolka in xogtiisa la helo oo seismic la sameeya annaga ayaa bilownay waxaanan u bilownay wax kale ma ahayn inaan ogaano inaan daatada meesha ku jirto prospectuska waxay yihiin batrool ma leynahay gas ma leynahay natural resource kale ama khayraad kaleeto aan leynahay ma jiraan inaan ogaano sababtoo ah waa tallaabada ugu horeysa ee loo baahan yahay in la qaado si aad ku ogaato inaad waxaysatay in kale inaan waddanka khayraad leeyahay tallaabadaas marka la qaadayna waa dee in waxaan ujeedada ka dambeysana waxay ahayd in haddii khayraad uu leeyahay waddanka looga faa'iideeyo ummadda soomaaliyeed ee tabaalaysan marka hore waxaan rabaa inaan arrintaas hoosta ka xariiqo oo aan isla qaadano in khayraadka looga faa'iideeyo ummadda laakiin waxaan rabnaa khayraadka marka ummadda looga faa'iideynayo waa inay jirtaa maamul wanaag waa inuu jiraa waa inay shuruucdii waddanka loo baahnaa waa inay jirtaa ma rabno waxa loo yaqaano resource curse ama resourcekii khayraadkii aad lahayd inay dhibaato horle ay ku keenaan inaan ka fogaanaan rabnaa waa og tahay waddanka nigeria kontonkii 1950skii ayuu batrool helay batroolkaasna kama faa'iideysan waa og tahay dalta niger gobolka la yiraahdo dhibaato badan inay ka taagan tahay dadkiisii dad waxaa jira la yiraahdo ogona people oo ilaa hadda dadkii deegaanka deganaa ah oo laga barakiciyey meesha arrimo la xiriiro maxaa la yiraahdaa bay'ada darteed beerihii ay tabcanayaan ay ku baaba'een waddankii xitaa dakhliga soo galaya kama faa'iideyso oo gaaska ay batroolka ay dhoofiyaan ayagoo ah waddanka 13aad ee waddanka ugu soo saarka badan waddanka koobaad ee afrika ugu soo saarka badan kama faa'iideystaan marka walaalow waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed u cadeyno annagu inaan rabno in la soo saaro xisbi ahaan iyo xildhibaan ahaanaba iyo shacabkaba in batroolka lasoo saaro dadka soomaaliyeed jiilkan hadda jiro jiilka ku xigay jiilka kasii dambeeyana ay ka faa'iideystaan laakiin waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin inta aan waxaas la samayn waxaa moodaa marka marka maxay dowladdu ku degdegtay dowladdu wixii aan soo bilowdeen bay dowladdu samaysay sida aad sheegtay wasiirkana uu leeyahay marka haddii halka laga sii amba qaado maxaa mugdiga iyo shakiga keenay markaa cabdirasaaq waaba sheegayba waxaan idhi shuruucdii waddanka shuruucdii baarlamaanka sharciga petroleumka ma jiro maxaa la yiraahdaa constitutionka waxaa ku jira qodobo badan oo u baahan in dib oogis lagu sameeyo si ay iskula jaan qaadaan sharciga batroolka iyo dastuurka si ay iskula jaan qaadaan waxaa kaleeto jira hay-ado loo baahnaa ay muhiim ay ahayd shaqada hadda wasiirka iyo wasaaradda ay u timid ma ahayn shaqo ayaga ay leeyihiin waxaa jira regulatory body arrimahaas qabto xitaa sharci ma aha wasiirka maanta inuu shirkaas intuu tago uu waa shir sidaan ognahayne wasiirku wuxuu yidhi daato un baan keenaynaa laakiin haddaad fiiriso jadwalka ay soo dejiyeen iyo oo aan aragno oo adinka naftiina aad aragteen waxaa ku jirta in license la bixin doono oo lasoo dalban doono processkana uu bilowday marka ma aha daato un baan tusinaynaa shirkadaha ma aha waa wasiirkii waa noo jooga marka su-aashaas asaga markaa kaaga jawaabo arrintaas waa mahadsan tahay mawlid walaalkii cabdirasaaqna wuu mahadsan yahay horta walaalkii cabdirasaaq waa wasiirkii dowladda federaalka ee ugu horreeyey ee wasiirka khayraadka noqda xilligiisina waxaa la engage gareeyey shirkadihii aan idiin sheegay labada ahaa mid ka mid ah oo samaysay seismic sahanka samaysay si shirkad loo engage gareeyana waxay u baahan tahay sharci ku beesgaraysan tahay maanta cidda ku doodaysa sharci ma yaallo shalay maxaa lagu saxiixay heshiiskaas waa inuu heshiis leeyahay sharci jiro shirkad kasta ama seismic ha samayso ama exploration ha samayso waa inuu sharci jiraa waddankan sharciya waa leeyahay waxaan leenahay sharci loo yaqaano uu og yahay mining code 1984 soo baxay xilligii maxamed siyaad bar allah naxariisto waxaa dib oogis lagu sameeyey qaybta batroolka oo keliya oo madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu saxiix baarlamaanka soo maray sharcigii 2008 petroleum law
kaasuu ku salaysan yahay heshiiska walaalkii cabdirasaaq uu saxiixay horta qofkii maanta ku doodaya sharci ma yaalo sharcigan intii sharciga kale uu ka bedelayo horta kaasaa hadda outstanding oo noo yaalo waa kow sababta ummadda soomaaliyeed investment intaas la eg looga geliyey seismic sababta ummadda soomaaliyeed looga geliyey investment intaasoo milyan dollar ah oo maalgelintaas lagu sameeyey haddaan lasoo bandhigi karin oo aan adduunkii loo soo bandhigi karin maxaan ku qabanaynaa muxuu ahaa daraasadaas iyo macluumaadkaas aan haysano annaga shalay cid kasta soomaaliya timid iyo ajnabi yimid waxay markhaati ka ahaayeen meesha waxa lagu soo bandhigay oo keliya inay ahaayeen macluumaadkii isaga uu markhaatiga ka yahay oo la soo aruuriyey ma jirin wax ogshana ma jirin wax bidha haddii aan bid ka fikirayno waa meeshana waa ka sheegay haddana waa ku celinaya waxaan sugaynaa dib u egista lagu sameeyey sharciga batroolka maadaama wadanka uu qaatay system federal ah isaga markhaatigu ka yahay baarlamaankuu yaalaa gudoonkii baarlamaanka shalay nala socday oo islaftiisa oversight nagu sameynaa ama dusha kala socdo marka wax lagu degdegayay in license la bixiyo ma jirto wasiir halkaas haddii aan wax kaa weydiiyo horta gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanku waa sharci dejin fulintii adinka ah inuu shirki yimaado sharciyan ma jirtaa shirka cid kastoo soomaaliya waa imaan kartaa wax dhibaato wax aan ku bixinayna ma jirin isagana wuxuu ahaa gastiga lagu casuumin inuu yimaado marka casuumaad buu ku socday casuumaad ku socday anaga casuumin wasaaradda ahaan waaya arrinta aad soo hadal qaado waxaa tiri arrinta waxaan ku soo bandhignay meesha sahan baan ku soo bandhignay iyo wixii la sameeyey oo dowladdii ka horreysay heshiiskaas ay gashay waaya ma xuma laakiin presentationkii ama soo gudbitaankii la soo bandhigayay waxaa ku jirta in shirkadda Spectrum ay meelaha qaarkood ay soo bandhigaysay oo ay lahayd miisaaniyadda ama sheerka ama saamiga oo kale ay ka hadlaysay 10% ilaa 30% shirkadaha la siin karo adinku aad soo bandhigteen 50% ilaa 60 heerkaas maxaa gaarsiiyey Spectrum ma aysan ahayn cid soo bandhigtay Spectrum ma aysan ahayn waxay ahayd khabiir wasaaradda batroolka ay engage garayso oo naga kaalmeynaya arrimaha financialka marka arrinta waxa soo bandhigay waxay ahaayeen dowladda soo bandhigtay Spectrum ma soo bandhigin way arrin fiican way dhinaca kale waxaa jira dad tuhan qaba oo ku aadan in hawshii ay iska lahayd hay'adda batroolka Soomaaliya ay hay'addan ay qaadatay Spectrum gaar ahaan marka laga hadlayo kale dhinacan canshuuraha oo kale may canshuur maba ka hadli kartaba Spectrum hay'adda batroolka Soomaaliyeed inta ay ka dhismayso waxay u baahan tahay hay'adda batroolka Soomaaliyeed sharciga markuu noo fulo waan dhisaynaa waxay u baahan tahay in dhaqaale u baahan tahay si loo dhiso intay ka dhismayso wasaaradda waxaan leenahay department loo yaqaan regulatory ama qaybta regulatoryga qaybtaasaa mas-uul ka ah ka wasaarad ahaan inay kasii shaqeyso gacmaha ma laabanayno shaqadii waa sii wadayna aad u mahadsanta waaya xasan iiga raalli ahaada iyo felis waxaan ku laabanayaa xildhibaan cabdirasaaq shirka markii uu intuusan dhicin aad baad buuq ugu furteen xisbiye iyo siyaasiyiin haddana meesha waxa ka cad waxay ahaayeen waxa wasaaraddu ay wadatay baarlamaanka uu la socdo inta badanna ah wax hufan xaggee marka mugdigan iyo shakigan shacabka aad geliseen ka keenteen adinku horta waxaan rabaa intaan su-aashaas aanan gelin dhowr arrimood oo wasiirka uu ka dhawaajiyey inaan jawaab ka bixiyo kow sharciga 2008ka baarlamaanka batroolka uu ka hadlay sharciga waxyaabo badan oo amendment lagu sameeyo u baahanaa meesha ku jiro sharcigan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo qaladaadka iyo iswaafaqsanaan la'aanta asaga iyo dastuurka ka jiro qodobka saddexaad ee sharciga batroolka ee 2008 wuxuu tilmaamayaa cidda iska leh batroolka waxaana ku qoran inay leedahay dowladda dhexe batroolka qodobkaas wuxuu ka hor imaanayaa qodob dastuuri ah oo qodobka 44aad oo sheegaya in arrimaha khayraadka ay ka wada tashadaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyadoo loo marayo qaab dastuuri ah waxaa kaleeto ka hor imaanaya qodobka 54aad oo tilmaamaya awood qaybsiga ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ku koobay awoodda ay leedahay yani jurisdictionka dowladda dhexe ku koobay afar shay oo ah difaaca maaliyadda arrimaha dibadda iyo jinsiyadaha kuma jiro maxaa la yidhaahdaa khayraadka kuma jiro marka qodobkaas in meesha laga saaro waxay noqonaysaa in ama qodobadan dastuuriga ah wax laga bedelo si qodobkaas saddexaad sharciga batroolka ku qoran ee dhahayo dowladda dhexe ayaa iskale batroolka ownership rights wax la yidhaahdo ayadaa iskale uu leeyahay ama qodobkaas in la bedelo ama dastuurka labadan qodob in wax laga bedelay noqonaysaa
waxyaabaha annaga aan ka hadlayno rabno dadku inuu iftiiminana waxyaabahaasaa ka mid a laba waxaa wasiirku wuxuu ka hadlay uu yidhi arrintan waxaa wado wasaaradda ma wadee qayb regulatory oo wasaaradda ka tirsanaa wato isla sharciga petroleumka isla sharciga shidaalka ee uu yidhi wasiirka baarlamaanku yaallaa waxaa qodobka 19aad uu qeexayaa waajibaadka shaqo ee wasaaradda shaqo kuma laha inay ka qayb qaadato bid license inay ka qayb qaadato shaqo kuma laha shaqooyin kaleetay leedahay oo ay ka mid tahay inay dejiso siyaasadii lagu horumarin lahaa shidaalka wadanka inay dhisto hay-adaha labada hay-adood aan horey aan usoo sheegay ah Somali Petroleum Authority iyo Somali National Company Oil Company oo isla sharcigaas uu ku tilmaamayo uu ku tilmaamayo inuu yahay Somali Petroleum Corporation in la dhiso shaqooyinkooda waa kuwaas hawsh sharciga ha marka hawshan wasiirka iyo ragga daba socdo oo ragga la socdo oo farsamayaqaanada ama siyaasiyiinta ama ha noqdo wasiir waxaan rabaa inaan wax yar ka iraado kelmadaha aad soo gelisay wuxuu Cabdirasaaq meesha ku sheegay in qodobka 44aad ee dastuurka aan weli laga heshiinin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed markhaati ka tahay inaan xasuusiyo in heshiis siyaasadeed laga gaaray Juun 2018 isugu Cabdirasaaq khaldin waxaa laga gaaray lahaanshaha maamulka iyo wadaaga khayraadka batroolka iyo macdanta Soomaaliyeed waxaa saxiixay ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxweynayaasha gobolada waxaa markhaati ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa meeshaas lagu cadeeyay yaa iska leh resource-gan haddii uu soo baxo khayraadkan haddii uu soo baxo yaa maamulaya yaa sidee loo wadaagayaa dastuurka qodobka 44aad oo Cabdirasaaq sheegayo sidee loo qaybsanaha ku taal ummadda Soomaaliyeed waxba qaybsamaysay way wadaagaysaa hadda waan cadaynay wadaaga iyo lahaanshaha iyo maamulka khayraadka sharciga hadda uu sheegay 2008 iyo 2017 aan baarlamaanka geynay inta way ku caddahay hay'adda batroolka Soomaaliya waxaa la dhisi doonaa marka dhaqaale ku filan loo helo inta ay ka dhismaysana waxaa sii wadi doona departmentiga wasaaradda ka tirsan oo loo yaqaan regulatory waaxda sharciyeynta in aniga aan u imaado inaan presentation data Soomaaliya la soo jeediyana macnaheeda ma aha in aan shaqadeeda aan ka gudbay waa shaqada wasaaradda wasiirka uu leeyahay inuu promote gareeyo khayraadka wadanka uu leeyahay waayahay Cabdirasaaq mawlid waxaan rabaa wasiirka oo iga dhex galay hadalkii anoo wado arrinta uu ka dhawaajiyo ah shirkii Baydhabo lagu soo heshiiyey wuxuu ahaa arrin ku saabsan resource sharing ku ahaa sida wax loo qaybsanayo waa runtiis laakiin wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed oo ahaa baarlamaankana lama horkeenin lamana saxiixin baarlamaankana kama uusan doodin oo sharci maba ahaba wuxuu ahaa arrin siyaasiyan loo heshiiyey maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ay ku heshiiyeen iyo madaxweynaha adiga waxaad saxiixday heshiiska sahanka iyadoo aan lahaynin heshiis wadaag ama dowlad goboleedyada heshiis ku ahayn waad og tahay walaal Cabdirasaaq heshiiskan hadda wuxuu meesha ka saarayaa wadaaga wasiir dhageyso de wasiirow hadde waxaad dood ma rabtidaan u malaynaa anaa hadalka wato aan dhammaysto aan kaaga baxo fursadaada qaado kala helnahaye wada Cabdirasaaq heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis resource sharing ah oo kaliya ma ahayn weliba petroleumka ma ahayn waxaa soo galayay kalluumaysiga ayaa soo galay wixii khayraada sida loo qaybsanayo uu ku jiray wuxuu ahaa heshiis siyaasadeed oo Baydhabo lagu soo gaaray waxaana yani u baahnaa in la keeno baarlamaankana lama keenin sharci ahaantiisa marka saasaan leeyahay waxaan rabaa inaan wasiirka u sheego annaga waxaan rabnaa ma diidanin batrool in la soo saaro laakiin batroolka la soo saaray iyo khayraadka inaan ka faa'iidaysano dhibaatada uu keeni kara inaan iska ilaalinaa la rabaa waxaa ka mid ah qodobka 19aad ee isla sharciga wasiirka uu sheegay ee shidaalka uu ka hadlay wuxuu qeexayaa waajibaadka shaqo ee hay'adda Somali Petroleum Authority ayada ayay tahay shaqooyinkan hadda wasiirka uu London u jooga ayada ayay tahay in qabato marka waxaanan fahamsanayn shacabka Soomaaliyeedna ay walwalka galiyay waxa weeye maxaa diidayo in la sugo shuruucda oo uu asaga naftiisa hadda qirtay oo uu yiri baarlamaanku yaala
amendment baa lagu sameeyey waa sugaynaa uu yidhi maxaa diidaya in la sugo in yacni baarlamaanka uu ka soo dhammaado maxaa diidaya in hay-addii regulatoriga ahayd in la sameeyo hawshaasna markaas kadib ay bilowdo maxaa diidaya uu rash ka socdo muxuu yahay konseynka shacabka soomaaliyeed ay qabaan annagana aan qabno waa taasa waxaan rabaa intii aadan soo gelin xasan iyo walaashay inaan cabdirasaaq weydiiyo heshiiskii sahanka ahayd oo isaga gacantiisa ku saxiixay ma waxaa jiray resource sharing oo hore loogu heshiiyey oo dowlad goboleedyada qaybsiga khayraadka miyaa impose ahaa oo yiilay meesha mise dowladda federaalka markaas mas-uulka ka ahaa saxiixda keligeed oo aan lala ogeyn haya cabdirasaaq waa kow tan laleeyahay aan siino marka isaga cabdirasaaq seismic survey buu ahaa waxa kaliya uu ahaa inaan ogaano khayraadka waddanka uu leeyahay ma ahayn heshiis wax lagu qaybsanaya ma ahayn laakiin hadda markii batroolka la qodo oo batroolka la soo saaro dee waxaa imaanaysa marka sidii loo qaybsan lahaa in laga hadlo cabdirasaaq saas maaha cabdirasaaq heshiis kasta oo la galayo waa in ay taalla meesha heshiis wadaag iyo dowlad goboleedyada ay ka yihiin markhaati waata wasiir waay aad baad u mahadsantihiin waaya cabdisaaq iyo wasiirka waa idinku soo laaban doonaa sidaas qadkii ku jira adinku aad u mahadsan waayahay waxaan jeclaa markaa inaan u wareego magaalada damaam ee waddanka sacuudiga doctor xasan raalle ahow adiga iyo felis waxaan filayaa xoogaa inaan waqtigiinii yaro buuranay dhegeystayaashana goordhow baan sii doonaa lakin waxaan jeclaa doctor xasan baan ka hormaraya doctor xasan muddo ayaad ka shaqaynaysaa arrimaha batroolka shirkad weyn oo sacuudiga oo waddanka hadda ugu horeeya soo saarista shidaalka adduunkana waad ka shaqaysaa soomaaliya xilligan diyaar ma u tahay wixii lasoo bandhigay iyo wixii mataqaanaa lasoo qabtay sida wasiirka iyo xildhibaanku ay u kala aragti duwan yihiin adiga maxay kula tahay bismillaahi marka hore waa ku mahadsan yihiin labada wasiir siday u doodeen waxaan filayaa inay isku meel wax u wadaan waxaa loo baahan yahay hadda aramco waxay hoos tagtaa wasaaradda batroolka sacuudiga waa sida national oil company ay u taagan tahay waddan walbana wuxuu leeyahay wakaaladaasi batroolka oo iyada heshiis u saxiixda iyada ayaa maaragtay la xiriirta shirkadaha waxoo dhan maadaama wasiir cabdirashiid uu yidhi wakaaladii weli ma dhisna hawshii wasaaradda ayaa sii wadaysa su-aasha meesha ka imaanaysa waxaa weeye wasaaradda hadday wadayso keliya inay deetadii ama xogtii la aruuriyo inay dadku shirkadaha u bandhigta isla markaana baarlamaankii uu ansixiyo waxaan u malaynayaa laba shaqo iska hor imaanaysa ma ah wasaaraddu sidan anigu qabo hawshii inay u fadhida ma aha haddii waxa ay ku kooban yihiin keliya in la suuqgeeyo xogtii lasoo ururiyey seismicadii two dimensional seismic oo spectrum qabatay iyo tii ka horeysay iyo kuwii horeba in shirkadihii berri ku tartami doona inay qandaraasyo qaataan in daatadii loo bandhigaa wax ku jaban uma arko waa haddaan heshiis la gelaynin waa haddaan license la bixinayn si license loo bixiya waan u malaynayo spectrum inay websitekeeda ay ku sheegtay ay leedahay roundiga u horeeya oo license waxaa lasoo xiri doonaa July 11 oo sanadkan ah oon fahmin waxay ka wado laakiin in lasoo bandhigaa daatada way fiican tahay haddii la yiraahdo heshiis ama license la bixinayaa ama heshiis caalami baa la gelayaa haddee waddankii batroolkiisii sharcigii batroolka waa in la helaa sharcigii bay-adda environmental law waa in la sameeyaa sababtoo ah baddii baa laga qorayaa meesha xayawaan baa ku nool seismicadaas dhawaaqiisa iyo drillinga la sameynaya offshoreka mushkilo weyn buu u keenayaa bay-addii wuxuu u keenayaa local capacity building baa loo baahan yahay marka ma fududa iyadoon dhisnayn national oil company oo heshiiskii batroolka diyaar ahayn oo la saxiixin ilaa madaxweynaha iyadoon la saxiixin heshiiskii deegaanka bay-adda iyadoo aan maarata intaa la qabanin haddee waxaan u malaynayaa inaan hadda dowladda soomaalida aynu ku degdegaynin inay samaysa laakiin sidaan u fahmay inkastoo dee round beatkan ay ku sheegayso spectrum iyo wixii la mid ah ay khalad laga fahmi karo laakiin haddii lagu kooban yahay keliya waxa loo yaqaan road show oo ah soo bandhigid lasoo bandhigayo deetadii spectrum ay aruurinaysay 3 sano u dambeysay si shirkadihii caalamka ay u yimaadaan oo la yiraahdo waxaan baan haynaa nasuga يعني markii ay la gaaro license-ga haddaba si diyaar garow dowladdiina ay baarlamaankiinu hawshiisa dhinaciisa ka wada laba howlo la isku wadi karaan oo aaminsanahay caalamkuna waa sidaas
دكتور حسن aad iyo aad baad u mahadsantahay waan ku soo laaban doonaa dhammaantiin saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 5 iyo barkii iyo qadar 2 daqiiqo marka waxaynu guda geli doonaa goordhow codadka dhageystayaasha hase ahaatee waayahay adinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin dhageystayaasha BBC-da barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xildhibaan Cabdirasaaq Cumar oo horeyna u ahaa xilal wasiir u soo qabtay dawladdii tan ka horeysay iyo Dr. Xasan oo ah qabiir dhinaca batroolka oo magaalada Dammam ee dalka Saudi Arabia khadka Skype-ka kaga jira iyo Felis Faarax oo stuudiyaha BBC-da London nala fadhida intaan Felis u wareegin waxaan jeclahay dhageystayaasha qaarkood su'aalo ayay qabaan qaarkoodna ra'yi bay hayaan bal markaan aan maqalno dhageystayaasha qayb ka mid ah ayuu baxsan barqatalan oo ka soo hadlaysa dalka Djibouti aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkii shalay London ku qarsoomay ee lagaga hadlayay shidaalka Soomaaliya run ahaantii waana tallaabo wanaagsan su'aashahan qabi waxay tahay dawladda Soomaaliya ee tallaabooyinka ay qaadayso maxay shacabka u ogeysiin lahayd maxaase shacabka looga qariyaa go'aanada ay dawladda Soomaaliya ay qaadayso shacabku miyayna qayb ka ahayn in go'aanada ay ku dhaqaaqdo dawladda Soomaaliya iyo mucaaradku maxay mar walba ugu kala fikir duwan yihiin in tallaabooyinka la qaadayo ee dhanka in maalgashiga wadanka kheyraadka Soomaaliya ma cid gooni ayaa qaybsan doonta mise in wala qaybsan doona su'aashaas ayaan weydiinayaa maratida barnaamijka dooda galabta aad baad mahadsantiin BBC Maxamed Ibrahim oo jooga Muqdisho runtii waa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in la helo shidaal dalka Soomaaliya oo baaritaan lagu sameeyo oo dawladdu ay ku guuleysato laakiin waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah maxaa keenay shakigan ay Soomaalidu isu aamini laadahay mar walba oo barnaamij la raadiyo dalka dadka wax u taraya in muran uu ka dhasho siyaasiyiinta maamul goboleedyada iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed loo raadin dawladuna aydan u qancinin dadka in barnaamijkan waxtar uu leeyahay bulshaduna aysan ugu qancin dawladda in is dhageysto ay u dhici weeyday taasan weydiinaya khubarada barnaamijka ku jirta insha Allah taala magacaygu waa Jaamac Maxamed Aadan Jaamac food kamas jooga magaalada Caynaba marka hore waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka Mawlid Xaji Cabdi iyo martida barnaamijka haddaan ka hadlo shirkii shalay ka furmay magaalada dhan caasimada dalka Ingiriiska ee laga doodayay soo saarista shidaalka Soomaaliya runtii ma aha mid waqtigan ku habboon waayo dawladda Soomaaliya waxa ay maqsadkeeda koowaad iyo ujeedkooda koowaad ay ka dhigatay amniga marka amni la helaana wax kasta la helaya waynu ognahay Soomaaliya waxa jooga ciidamo ka badan 22,000 oo askari mu'amisoon uunba amniga Soomaaliya markasta damaana qaas oo faraha ku haynaysa waayahay aad iyo aad u mahadsantiin dhageystayaasha xildhibaanka iyo wasiirka iyo Xasan oo ay soo laaban doonaa Felis markaan u wareegay Felis doodda waad maqlaysay dhageystayaashina waad maqlaysay maxaa ku baxay waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aasha ugu dambeysay oo muhiim ah oo wiilka ugu dambeeyay soo jeediyay ahayd muhiimadda waxay tahay iyo priority in la galiyo amniga laakiin dhaqaale u baahan yahay wasiirka maanta nala jooga waa ognahay wadan aan dhaqaalahaysan amnigiisa lama soo koobi karo inta qarash ay u baahan tahay wuxuu baahan yahay booliiska in laga shaqeeyo wuxuu baahan yahay militariga in lacag la geliyo waxaasoo dhan qarashkeedii foreign aid ayo maalin walba nooga imaanaya international community bulshada caalamka taageerada kaliya naguma filnaan karto marka waxa waaye in aan anagu waxaa la yidhi qof hadaa rabtid inaad wax siisid malayga waa inaa asaga bartid sidii malayga loo daban lahaa laakiin malay ha siinin marka annaga marka meesha hanta taaganaha waxay tahay inay shacabku ay arrintan u arkaan positive arrintan arrin soo bilaabatay waaye 2008 Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf markuu ah madaxweynaha legal framework oo su'aalaha ay ka qabeen badriyoolka waxay ka soo bilaabatay baarlamaankii Baydhabo oo Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay waqtigu uu jooga arrin soo bilaabatay waxaan jeclahay Som Oil inay ugu horeysay company-gan waa company Norwegian oo laakiin UK degan ugu horeysay waxayna ku wareejiyeen informationkii iyo data ay noo soo ururiyeen waxay ku wareejiyeen company-gan marka anigoo respect siinaya walaalkeena Muqdisho ka soo hadlaya oo hadda I think wuxuu ku jiray dadkii ka warhayay waqtigaas daytada markaas ilaa markaas la soo aruuriyay meesha ay taagneyd uu ka warhayay haddana arrintii shalay dhacday waxay ahayd just soo bandhigid la soo bandhigaya waxaan haysano is like neefka ugu buuran ayaa la keenaa meesha marka 15 block oo attractive ayaa waxa loo soo bandhigay oo la tusay Soomaaliya oil bay haysataa waxaana laga baaray Galmudug Hirshabeelle
waxaa laga baaray jubbaland waxaa laga baaray koonfur galbeed oo baraawe iyo marko oil baa kasoo baxaysa muqdisho oil baa kasoo baxaysa hobyo oil baa kasoo baxaysa maxay ahaatay dhulku waa dhul barwaaqaa waqtiga hadda aan ku jirno waa waqti aad iyo aad muhiim u ah inay soomaalida ay ku farxaan ayna soo dhoweeyaan meeshaan taaganaha shalay maanan taagnay waa maasan tahay waaya wasiirkan kusoo laabanaya haatan wasiir ergadiinna shalay shirka ka qaybgalaysay ma wadateen khubaro soomaaliya ma wadateen aqoon-yahano soomaaliya oo dhinaca sharciga yaqaano qaanuunka haddiiba ay timaado in waxaan u baahan yahay qaanuun waad mahadsan tahay mawlid waa run ergadeennii aniga aan hogaaminayay waxaa ila socday khubradii wasaaradda oo isugu jira farsamo yaqaano geologistayaal iyo sharci yaqaano waxaa kaloo nala socday wafdi ka socday dowlad goboleedyada oo dhammaantood caddeeyey dowlad goboleedyada inay taageersan yihiin barnaamijkan waxaa kaloo nala socday waaya adooga raali wasiir dad qaanuunka yaqaano oo la hadalnay su-aal bay ka keeneen ka qaybgalka maamul goboleedyada haddii aanay ahayn wax soo bandhigid ama in wax la kala iibinayo haddaysan ku jirin maxaa keenay inay yimaadaan maamul goboleedyada waxaa keenay ayaga laftooda waxay danaynayeen inay ogaadaan khayraadka waddanka ku jira inay ogaadaan presentationka wuxuu shirkadda ma keeni karin dhul Soomaaliyeed inta lagu hayaa daatadii Soomaaliyeed marka waa inaan maadaama aan dhagax laba shimbir ku dilay noqotay shirkadihii caalamiga maadaama imaanayaan Soomaalida aan keeni karnoon inaan keeno si ay u arkaan khayraadka waddankooda ku jira intaas eed ma aha wax negotiation iyo wax macna wada hadal ama xaraash waddanka kama dhacay waxa su'aalaha ku jirtay su'aal ku saabsaneed amniga Soomaaliya haddeertaan inay mashquul ku noqoto petrol iyo soo saaristiisa iyo amniga oo aan ognahay in dawladda adigu ka tirsan tahay aanay labada gobol ee xamar geesaha ka xiga caasimadda aysan haysan ya ahmiyad iska leh xilka amniga wuxuu saaran yahay qof kasta muwaadin Soomaaliyeed dawladda laakiin ninka la doortay wasiir sax dawladda waxay ka tahay ayada mas'uulka ah waddanka dawladda waxay dadaal ugu jirtaa in amniga sugto macnaheeda ma aha inaan gacmaha laabano oo shaqooyin karanka aan meel dhigin oo aan ka shaqeynin wasaaradda batroolka aniga mas'uulka ka ahay waxay mas'uul ka tahay inay waddanka u sahmiso khayraadkiisa una soo saarto marka hay-adihii amnigana way shaqaynayaan annagiina maxaan ka shaqaynaynaa inaan dhaqaalihii kor u qaadin sidii walaashii Falis u sheegtay dhaqaale si amni loo sugo dhaqaale loo baahan yahay amni darradana waxaa keentay waa dhaqaale darro dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku fidnoobay dhibaatada maanta waddanka ka jirta haddii shaqooyin loo abuuri lahaa saan ma dhacdeen annagana waxaan raadinaynaa habkii aan shaqo u abuuri lahayn project mashaariic ugu heli lahayn waa maasanta waay Falis ku salaamana xilli Cabdisaaq ma siinaya xilli Cabdisaaq baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan tahay ma jira sharci batrool oo Soomaaliya u yaala oo lagu xisaabtami karo oo wixii dhibaato ah oo imaan karana looga hadli karo arrintaas ma jirtaa sida wasiirka uu sheegayo adoo soo koobayo wasiirka waa horta intaanan taas ka jawaabin waxaan rabaa wax yar inay iraahdo oo Dr. Xasan uu ka dhawaajiyay runtii oo ah cabir sax ah aan aaminsanahay yani si analysis sax ah inuu ka sameeyay oo ah lama diidana in yani petrol la soo saaro laakiin waxaa ka horeeya hay-adihii regulate gareyn lahaa petrolkaas sida wasiirkan waxaan rabaa su-aashaas inaan weydiiyo oo ah data inaad tustaan oo xog aad la wadaagtaan sida uu sheegay Dr. Xasan keliya may ku eg tahay mase sida jadwalka idin qorshaha idin degsan aan ku aragnay meesha oo aad soo bandhigteen oo la leeyahay license-ka waxaa la bixinaa 7 bisha November saxiixana wuxuu dhacayaa December 9 ma bid roundkii baa bilowdeen iyadoo aysan hay-adihii loo baahnaa hawshaas inay qabtaan aysan noo diyaarsaneen oo aysan samaysnayn su-aashaas waa su-aasha uu Xasan weydiiyey oo aan isleeyahay waa waxa keenay shakiga waa waxa keenay shacabka Soomaaliyeed wasiirka markaa siino Cabdirasaaq hadii waad maadsanta Cabdirasaaq meesha waxaan ka cadeeyay si saxan uga sheegay shalay shirka waxaan ku iri deed kastoo la qabto haddii aysan noo oolin sharcigii lagu dhaqi lahaa batroolka dib u egistiisa hadduusan soo bixin deed kastoon qabana dib uga dhacaya wax shaki kuma jiro in ummadda Soomaaliyeed sharcigaasoon loo meelmarinin inaan waxba la qabanayn dib u egis sharcigaasaa ka horeyso laakiin annaga waa sii saadaalin karnaa maalin
maalin waan qabsan karnaa haddii aan ka gaarsiino haddaan ka gaarsiin weyno amendment waa samayn karnaa dib aan u dhigi karnaa laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaalkii cabdirasaaq iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed sharcigaasoo aan gacanta lagu haynin iyo ka hor xaraash inuusan dhacaynin qadaraas uusan dhacaynin laakiin waxaa shaqada aan qabanay waa uun keliya soo bandhigid macluumaad aan hayno waa mahadsan tahay waxaan jeclaa markaa inaan ku laabto waxaan rabaa kama jawaabin waxaan rabaa wasiirka wuxuu yidhi sharciga batroolka markii baarlamaanku uu ansixiyey kadib waxaa loo baahnaanayaa in hay-addii regulate garayn lahayd la sameeyo hay-addaasoo aan la samaynin sharcigeeda loo samaynin ayadii la dhisinna waxba ma suurtoobayaan marka waqtiga cabdirasaaq haddaadan si kale mucaarad u ahayn wasiir aan siino fursadooda marka wasiir fikirka haddaan dhiibto mucaaradaa tahay يعني ودقنكي مدحونا فرماجة مالمهن وشيغي او اها انتي انغا waxaan noqonay in dadka waxa wanaagsan u sheegno aan dhahno waxaan aan ka doodno oo aan yani waxaan la waxaynayo aan ka wada hadalno aan wax toosino marka madaxweynaha baa wuxuu hadlayaa u dhaqmayaa sidii mucaaradka wuxuu leeyahay qofkii fikirka gedisan la yimaadaba waa siyaasi xanaaqsan marka dhaqanka noocaas oo aan wadankan lagu aqoonin wasiir waxaan jeclaan lahaa inaadan yani aadan ka daba qaadanin waa mahadsantahay cabdirasaaq waa idinku soo laabanaya Felis rabaa inaan ka faa'iideysto aan su'aal weydiiyo wasiir waxaan ognahay in calashan qolyahan tartamaya 7 July wax la mid aan maqlay in maaragtay application soo gudbisan doonaan codsi ay soo gudbisan doonaan marka sida ay u yihiin calashan ayaga ruuxooda dad oo maaragtay waa kala garan kartaan shirkado la aamini karo oo responsible ah oo calashan environmentiga markay noo yimaadaan waa aragtay markii wax la qodayo waxa soo butaacaya oiladiga soo butaacaysa agagaarka sida baraawo iyo marka agteedana dad beeraley u badan yihiin waxay ku sameyn doontaa effect badan marka qaybtaas ayada ruuxeeda legal ahaan ma diyaarsan tahay in sida lagu qancin lahaa dadka beeraleyda oo areadaas maaragta ka agdhow waa run sharciga batroolka ee laga yaala hadda baarlamaanka wuxuu cadaynayaa qayb dhan wuxuu leeyahay bey'adda oo cadaynayso sidii bey'adda loola dhaqmayo iyo wix haddii dhibaato timaado sidii shirkaddii loola xisaabtamayo marka waxaa kaloo jira xafiis weyn oo ku yaala xafiiska prime ministerka oo qaybta bey'adda mas-uulka ka ah waxay wadaan daraasad lagu xakamaynayo bey'adda marka dhibaatada kuusoo laabanaya Felis igaralo wax yar wasiirna kuusoo laabanaya Dr. Xasan baan jeclaa inaan ku laabto magaalada Dammam ee wadanka Sacuudi Arabiya Dr. Xasan wasiirku sidoo sheegay Cabdirasaaqna ka dhawaajiyay waxaa jirta in la tartami doono muddo la qabtay ilaa 2020 ku eg waaya sida marka Soomaaliya danteeda halkaas ugu heli kartaa way kolata adiga qabiir baa tahay waxaad ka warqabtaa aramka markay bilaabaysay waxa isla lahaa Sacuudiga iyo Mareykanka Soomaaliya xilligan oo kale awood ma u leedahay inay ma haysataas dadkii khibradda u lahaa oo in ay mataqaana heshiisyadaasi la gelayo ay Soomaaliya siin karaan saami aad u fiican marka hore shirarka noocan oo kii shalay la qabtay wasiirka ka qayb galay oo road show loo yaqaano sida badan waxa weeye shirarka noocan oo kale ilaa 3 inay gaaraan weeye macnaa ma aha hal mar kaliya in inta wax la tuso shirkadihii ima waa in shirkado badan ay ka soo qayb galaan oo uu tartami kara si ay u helaan qandaraas mustaqbalka kan marka sida aan dareemayo mid kale ayaa ku xigi doono meelahan ka akhriyay waqti badan in la geliyo oo ma aragtay daatay loo bandhigo oo wadankii ma aragtay la tuso hadda carabtan ku noolahay aad bay wadaacadaha iga maqlaan ay ku leeyihiin Soomaaliya batrool baa soo saaraysa ma xuma in sumcaddii wadanka kor loo qaado in batrool la heli doono oo dhanka siyaasadda iyo dhanka kale harin xun ma aha hase yeeshee waxaa meesha ku jirta oo shakiga dadka keenaya dowladda khaasatan wasaaradda batroolka inay yeelataa public relation macnaa dadka waxaan ka wadaa dadweynaha intaynan London imaanin laga warhelin in idaacadaha kii dowladda TV-ga kuwa kale ay ummadda u sharaxdaa waxaan spectrumkan waxay qabanayso ay u sharaxdaa waxa kaloo iyadana meesha muhiim ah ku jirta spectrum roolkeeda ma wuxuu ku ekaa kaliya inay soo ururiso xogtan kadibna ay halkaa ku ekaato sida website-keeda ay ku qorayso waxa weeyaan spectrum taariikhdan hadda July iyo November iyada ayaa qabanaysa waxa ila haboonayd in wasaaraddu qaybteeda xiriirkeeda dadku ama caalamiga inay iyadu u sheegto
ummadda Soomaaliyeed in kale in taariikhan ay yihiin sida wasiirka ka dhawaajiyay taariikh la sii saadiyay laakiin dib looga dhici karo ama waqtigeeda lagu qaban karo waxayna ku xiran tahay wasaaradda sharciga batroolka sida loo saxiixo national oil company sida loo sameeyo waxa kaloo aad muhiim ah ilaa hadda aanan fahmin wasaaradda bay'ada ama environmentiga waxa weeye waa sharciga aad buu muhiim yahay marka waxa fiicnaan lahayd wasaaraddu inay arrimahan dadka ka qancisaa si shakiga iyo maaragtay meesha looga saaro دكتور حسن aad wada baasatay waayahay wasiir arintaas laga hadlayo Spectrum shirkadan soo bandhigtay shalay miyuu ku ekaa intaas mise hawshan qayb ka tahay maya shirkadda waxay noo samaysay sahanka badda waa shirkaddii labada sahanka badda noo samaysay kow waxay noo haysaa daatadii labada shirkadood macluumaadkii shirkadda hore Soma Oil ay samaysay iyo tan ayada ay samaysaba ayaa loo xilsaaray in noo hayso noo kaydiso noo iibiso nooga shaqayso waxaan u xilsaarnay eventigii maadaama ayada ay meel magaalo caalam weyn degan tahay London inay eventigii shalay nala samayso kadibna ay sida uu sheegay Dr. Xasan waxaan ku tali jirnaa bisha March inaan ku sameeyno Istanbul sidaas oo kale bisha Mayna inaan Mareykan ku sameeyno si aan ilaa hadda waxaan ku jirnaa inaan indhaha caalamka maalgashiyaasha caalamiga inaan ku soo jeedino Soomaaliya resource-gan inuu jiro at least marka ma waxay idin sameeyeen suuq geyn idin sameynaysaa waxay nala sameynaysaa soo bandhigid daatada Soomaaliya waayahay sidee marka adigu wasiirkii baa tahay dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliya sidee ugu ballan qaadi karta ugu cadeyn kartaa in hantida Soomaalidu ay leedahay batroolka aanay shirkado suuq madow oo qaarkood ay laga yaabo inay ku shaqaysanayaan si sharci darra aanay u helin uguna helin awood oo ay hadhowtina baarlamaanka uusan intii waxaan u meel mariyo aanay hadhowta u noqon wax sharci oo Soomaalida dhibaato ku ah waxaynu la soconaa wadanka Turkiga in 100 sano aanu shidaal soo saaray karin 2023 ugu eg tahay 100 sano marka in Soomaaliya aanay gelin heshiis dhibaato keeni kara sida u cadeyn karta dadka Soomaaliyeed wasiir inta ilaahay nala ogyahay waxaan ummadda Soomaaliyeed maanta u ballan qaadayaa inta gacanteen amaanadan ku jirto inaysan si khaldan wax u dhici doonin waxaan ilaalin doonaa sharciga batroolka waxaan ilaalin doonaa shuruucda wadanka bii'ada waxaan ilaalin doonaa dastuurka heshiis kastoo la gali doonana sida golaha wasiirada ay meel mariyeen wasiirka iyo wasaaradda kaliya ma saxiixi doonaan mas-uuliyadda waxaa qaadi doona golaha wasiirada oo dhan marka haddii heshiis la soo daraaf gareeyo oo hay-addii ay soo daraaf garayso wasaaraddii wasiirka soo maro golaha wasiirada la geynaya golaha wasiirada u codaynayo mas-uuliyadda marka waxay noqonaysaa mas'uuliyad jamaaci oo ummadda Soomaaliyeed cidii ay dooratay wada qaadayso way waa baasantahay wax yar baan ku dari lahaa hadaad iga Dr. Xasan waxaan ku dari lahaa sida wasiirka sheegay kaliya ma aha shirkadahan waa shirkado waaweyn Schlumberger Shell shirkadaha xataa kaama yeelayaan wadan aan batrool qaanuun lahayn wadan aanan lahayn maaragtay sharci aanan lahayn sharcigoodii batroolka aan la ansixin wadan aan shirkadii shidaalka qaranka aan loo samayn wadan aan sharcigii deegaanka aan loo samayn war shirkadahan caalamiga iyagu xataa kaama yeelayaan inay intay iska saxiixdaan iska qaataan waxay og yihiin berri ka maalin in maaragtay inta loo yimaado la yiraahdo maxaad heshiiskan ku gasheen marka waxaan filayaa ma aha kaliya Soomaalida in la xadayo shirkadahani waa waxaan ma aha dheeman la soo xadayo waa batrool iyo shirkad sanawaad soconay aramkadan hadda aan ku jiro 80 sano aram 20 sano un bay hadda Sacuudiga gacantu 100% ugu jira inta ka horeyso dhan Mareykanka ayaa u hayay qayb yar baa laga siin jiray heshiiskooduna saas oo ahaa ilaa ay loo dhiso kadib markuu waqtigii dhamaadayna 80meeyadii lagu wareejiyay 100% wadanka Sacuudiga waa maasantaa Dr. Xasan waaye 10 daqiiqo ka yar baa waxaan soo koobno Filis ma ku soo laabanaya Filis waayahay heshiiskan Spectrum iyo sahanka la sameeyayba dawladdii hore gashay wasiir Cabdisaaq baa la sheegay dawladda Soomaaliya hadda yartaan inkastoo wasiirka su'aasha qaarkood qayb ku yeelan doono ma wax fiican bi ahayd oo soo ay sameeyaan miya ahayd okay haddii ay dhibaato ay ku jirto maxay ugu eedeyn waayeen ama aysan shirkad kale u siin waayeen waxay ila muuqataa ani shacab ahaan qof muwaadina markaan u hadlaayo arrimo siyaasadeed oo hoose ayaa ka dhaxeeya dowladda ka dambeysay ee u gudbinaysa way ka warhayaan saan sheegaba 2008 waqtigii baydhabo agreementigii legal frameworkii petroleum law lagu soo qoray ayay hadda ku shaqeynayaan shalay shirka waxa yaalay ay wali ku shaqeynaysaa because ka kala cusub wuxuu leeyahay baarlamaanka hadda abriil buu soo dhamaan doonaa marka maxay ahaatay waxay ila muuqataa marka
kow horta inay iyagu ay isxaliyaan oo siyaasad ahaan shacabka aan la lugoylin ee sida arrintu tahay loogu sheego waa wax fiican oo laga soo shaqeeyey waqti dheerna qaadanayso waxaan wareystay agaasimaha farsamada cabdilqaadir abikar xuseen oo wasiirka la shaqeeya wuxuuna ii sheegay inay qaadanayso 8 sano inta laga soo saari doono batrool ayna ka bilaaban doonto gobolada galmudug iyo ay ugu horeyn doonaan marka faa'iidada ah in la isxasuusiyo ka imaanaysa marka riigag waaweyn oo company caalami oo oolyo u qodayo wuxuu habaynayaa eriyada dhan oo baddaas u dhow wuxuu gelinayaa lacag buu gelinayaa badan oo shacabka meeshaas uga faa'iideysanayaan filis ma santa wasiir si kooban wasiir baaritaankan wuxuu ku saabsanaa haddii arrinta hirgashana waa dhinaca badda arrintaasi ma wax u qaadateen dhinaca ammaanka oo wadankii inta badan xitaa al-shabaab meelaha qaarkood ka taliya meelaha qaarkoodna waxa dhici karta ka jira maamul goboleeda ka taliyaan dhinaca badda sababta loogu sameynaya sahanka iyo haddii ay noqoto waxaan la soo bandhigay oo dhan in laga qodo badda maxaa u doorateen isoo koob wasiir horta sahanka dowladdan hadda jirta ma sameyn waxaa sameeyey dowladdii madaxweyne xasan sheekh waa qayb ka mid ah cabdirasaaq anoo saxiixay asoo wasiirka khayraadka annaga waxaan ku shaqaynaynaa daatadii ka soo baxday keliya sahankii labadii sahameed laga sameeyey badda waxaan rabnaa inaan daatadii laga soo saaray inaan suuq geyno oo aan caalamka tusno keliya laakiin inta wasaaraddan aniga aan mas-uulka ka ahaa weli contractor ma aysan saxiixin laakiin way degsan tahay baraankii wax qorshihii baa degsan qorshaha oo ah xilligaas in la sameeyo qorshaha waaba kuu sheegayba qorshaha waan dejinaysi oo kumeel gaara laakiin markasta waxay ku xiran yihiin in shuruucdii aan dhammaystirno maxaa loo doortay marka badda waxaa loo doortay badda horta annagaa iskale badda awalan annaga dhulkeena ka mid tahay number 2 dowladdii horaa dooratay inay sahan ka samayso waana sahankii aan ku shaqaynaynaa waana guul oo faa'iido Soomaaliyeed ay heshay waay baddaas oo aan la ogeyn wixii ku jiray in maanta ay banaanka tahay waaya waa maasan tahay waaya dhageystayaasha ayaan markaan fursad siinayaa qaarkood magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho haddii aan aragtideeda ka dhiibto dooda shirkii ka dhacay magaalada London ee lagaga arrinsanayay sahminta shidaalka Soomaaliya runtii waxaan u arkaa tallaabo wanaagsan in maanta shidaalka Soomaaliya lagu sameeyo sahmin ama sidii loo soo saari lahaa shidaalka ku jira dalka iyo meelaha laga helayo waxayna ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya maanta haddii ay hesho shidaal ay la soo baxdo dhinacyo badan runtii dhaqaalaha Soomaaliya waxa xaqiiq ahaan lahayd inuu sare u kaco oo Soomaaliya ay heli lahayd dhaqaale ku filan laakiin taas suurtagal ma ahan waayo waxaa jira wadamo aan ogolayn Soomaaliya in ay shidaal la soo baxdo taas oo ayaga caqabad ku noqonaya waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya in kheyraadkeeda la soo bixi karto oo ay shidaalkeeda la soo saari karo laakiin se ma ogola wadamada qaar oo sidoo kalena ay dad Soomaaliya gadaal ka riixayaan in Soomaaliya maanta ay shidaalkeeda la soo baxdo waxa wiila daar gabar oo joogta magaalada Cadaado dooda galabta hadii aan ra'yigayga ka dhiibto dowladda Soomaaliya waxa aad moodaa tallaabada ay qaaday inay ku degdegtay dalka Soomaaliya inta badan kama taliso mucaaradka Soomaaliya oo al-shabaab iyo waxa gacanta ku haya maamul goboleedyo aan dowladda cilaaqaad fiican kala dhaxaynin martida galabta waxaan weydiinayaa ma la dhihi karaa waxay ku degdegtay dowladda Soomaaliya tallaabada ay ku qodayso shidaalka Ibraahim Abdurrahmaan Maxamed Ciise waxaan joogaa magaalada Hudur ee xarunta gobolka Bakool ugu horreyn waxaan salaamayaa daadiyaha barnaamijka dooda Jimcaha iyo dhageystayaasha laanta af Soomaaliga iyo martida barnaamijka aniga waxaan qabaa su'aalo aan rabo inaan weydiiyo martida barnaamijka baarlamaanka Soomaaliya ama xukuumadda Soomaaliya aaway doorkii baarlamaanka Soomaaliya ee heshiisidan caalamiga ah markii la galaayo aaway amnigii Soomaaliya guud ahaan ee dowladda Soomaaliya ee laga rabay Soomaaliya hadda se ma joogtaa waqtigii shidaal ama kheyraadka dalka ku jira ay soo saaran lahayd waxaan weydiinayaa su'aashaas khubarada barnaamijka xukuumadda oo arrinkan ka sii hadashay waxay sheegtay in aanay jirin wax iib ah ama kheyraadkan la iib geynayo maxaa badeecada suuqa loo geeyay haddii aan iib ahayn aad baad u mahadsantihiin BBC waxaan ahay Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac Cabdigeesi oo jooga magaalada loo dalxiiska taga ee Ceel Sheekh waan ku salaamay Mawlid Xaaji Cabdi soo saaraha barnaamijka iyo dhammaan ka qaybgalayaasha martida ku ah iyo dhageystayaasha guud ahaan aniga waxay ila tahay maanta lama joogo amintii ay Soomaaliya sahmin lahayd ama soo saari lahayd shidaal magacayga Baleeray Faysal Maxamed Bakaal akoon magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya runtii hadii fikirkay ku dhiibada ee dooda Jimcaha ah ee waxay ila tahay
runtii shidaalka dowladda Soomaaliya ayuu ku hadalay oo meelaray intii la habiye runtii waa arin ana hadhawaayo waayo dowladda Soomaaliya may balan ku baahanya intii meelaray wax qabad in walbiya suubida iyana kubata faqriga iyo nahaysata waayo khayraadka wadankan ka jira may balan faday intii ku faa'iideysano oo ku faa'iideyna dalkan hooyo si inuu ku faa'iideysano oo inuu ku bana faqriga iyo nahaysada waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin adinku dhegeystayaasha BBC-da waaya gabagabo ayaan ku jirnaa 3 daqiiqo ayaa inoo soo hartay waxaan jeclahay inaan waqtiga soo koobno waxaan jeclahay inaan ku laabto muqdisho xildhibaan cabdirasaaq su'aal waxaa jirtay uu soo weydiiyey Ibraahim Xudur oo yiri doorkii baarlamaanka aaway heshiisyadan marka si kooban doorkiinii baarlamaanka maxaad ku leedihiin ma reality iyo xaqiiqda markaan ka hadlayno baarlamaanka waxaa ka dhisan guddiyo oversight ama korjoogteyn ku sameeya baarlamaanka ku sameeya xukuumadda badankooda ma shaqeeyaan waxayna la shaqeyn waayeen dee waa baarlamaanka waa aragtan adinka dhab shacabka loogama turjumayo baarlamaanka wuxuu noqday intiisa badan waxay noqdeen dad la iibsaday runtii waa ka xumahay anigoo ka tirsan xildhibaan adaa sheegaya haye shacabka ah waa hadda ka hor baa Voice of America laga soo daayay galka baaritaanka xildhibaano ka hadlaya oo dhahaya laaluush bay xukuumaddan la siisay waa la wada ogyahay u malaynaa marka doorkiina baarlamaankii waa meesha uu marayo ummaddan ilaah baa u maqane meeshaas bay wax marayaan aniga baarlamaanka su'aasha ku saabsan aad baad u mahadsantahay waaya waxaan siinayaa Dr. Xasan adoo soo koobaya in ka yar daqiiqad baan haysanaa talo guud qabiir baa tahay Soomaali baa tahay maanta xaaladda sida wax u dhacay oo ujeedaa sidee xeego loo xagtay ilkana ku nabad galna adoo soo koobaya aniga waxaan ku dari lahaa soo bandhigadan la soo bandhigay xogtii la aruuriyay 3 sano ugu dambeysay oo Soomaaliya ay caalamkii ay maartay mar kale ka soo muuqato waa arin aad loogu baahan yahay hadii lagu kooban yahay in la soo bandhigo oo wadankii u soo sharax Mozambique badda ayay ka heshay Kenya badda ayay Mozambique natural gas bay ka heshay Kenya badda ay ka heshay Soomaalidu waxa ku dhiirigeliyay iyadana inay badda aada waa sidaas waqti waa arin noqday wasiir 10 second adoo raaliya waa waqtiga gabagaba run ahaantii waa mahadsantahay waqtiga igu yar laakiin baarlamaanka markii aan ka hadlo aniga iyo wasiir cabdirasaaq xildhibaan baarlamaankan nahay mana la qabo in baarlamaanka uu yahay baarlamaanka rabtada marka laba qabto waa mahadsantahay Felis 10 second waxay ila tahay in la soo dhaweeyo batrool kaliya ma aan haysano waxaan haysanaa iron waxaan haysanaa salt waxaan haysanaa ciid waxyaabaha badan oo la soo saari doono la iib geyn doono macdanta kaliya xoolo inaan dhoofino kuma ekaan doono waxaan ka codsanayaa shacabka inay positive ahaadaan inayna soo dhaweeyaan wax kasta